xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo dhammaan ikhtiyaarta halkan iskugu timid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii sharaf iyo rayn aan la soo koobi karin ayay noo tahay maanta inaan goobjoog u nahay heshiiskii aan ka soo shaqaynay 10 qodob ka koobnaa dhinaca ka badbaado qaran ahaan wixii nooga soo aaday intii ugu dambeeyay fulinteeda inaan maanta goobjoog u nahay shalay xarumihii aan ku sugnayn iyo difaacyadii ciidanka badbaado qaran joogay ayaan amnigooda ku wareejinay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maantana ciidamadii badbaado qaran ee dalka iyo dadka u soo gurmaday ayaan inta ka soo saarnay goobihii ay ku sugnaayeen waxaan u kala diraynaa furimihii iyo deegaanadii ay ka kala yimaadeen ee difaac ay uga jireen ee dalka iyo dadkaba lagu difaacay runtii cashar cusub oo Soomaali ay xasuusan doonto muddada dhow iyo muddada fogba ayay ciidankaanu ka hirgeliyaan dalka in diktaatooriya la diido xukunkii qori isku dhiibka ah ee dalka ka jiray sidiisa inuu ku socdo ay ka shaqeeyaan dalkaana inaan xoog lagu maamuli karin iyo qori caaradiis inay xaqiijiyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaa ammaan mudan sidoo kale muddadii ciidamadan ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho saldhig la taabta ma jirin oo ciidamadii booliska ayaa ka howlgalay wax la dhaca ma jirin oo qof ka sheeganaya maanta ciidankaas ayaa dhibaato ii geysta ama wax iga qaada ma jirin qof lagu dilay magaalada Muqdishona ma jirin ilaahay amarkiis ma naqaan wixii dalka dili jiray meel ay aadeen waa rajaynaynaa ciidamadanadii badbaado qaran hadday ka soo baxeen magaaladii oo deegaanadii ay ku sugnaayeen ay dib ugu laabanayaan magaaladaas inaan qof dambe lagu dilin siyaasad loo dilin arrimo kalena loo dilin runtii waxaan rajaynaynaa sidaan aad ugu soo dhabar adeegteen dadkiina iyo dalkiina inaad u shaqaysiin abaalkeeda ayaad leedihiin waa laydiin gudi doonaa insha Allah wadii Allah awood la ogolaado xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu uu gaaminayana waxaan halkaan ugu baaqaynaa oo fariin ugu diraynaa annaga intii naga la rabo waa sameynay ra'iisul wasaaruhu waa ku soo garab istaagnay wax allaale iyo wixii aad codsatay oo tiraha la sameeyo waa sameynay waan ognahay dibindaabyo badan in loo dhigayo heshiiska in la fashiliyo in la rabo in la isleeyahay qoladaan ayaga hadda wax ku wareegeen ayaga qoorta la isku geliyo annagu waa ka badbaadinay adigana waxaan rajaynaynaa kuwa agahaga meereysanayo raba inay fidnadaas ka shaqeeyaan inaad adigana ka soo baramoosi doontidaan rajaynaynaa insha Allah hadii alla yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waa idin hambalyeynayna anaga ka gudi ahaan waa ku faraxsanahay sidii aan ku ballanay iyo qaabkii wax loo dhigay heshiisku inuu u fulo inta dhimanna waxaan ka rajaynaynaa dhinaca xukuumadda sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana inuu uga fulo insha Allah hadii alla yiraahdo annaguna waan ku dabageli doonaa oo ku korjoogtay doonaa waan ku hubsan doonaa wixii lagu ballamay sidii ay ahaayeen inay u fulaan insha Allah